قصص القرآن مدى الأيام ومعانيها تروي الإلهام لبني إسرائيل بيانا من بعد العزة والإكرام. intii ay reer banu Israa'iil ku guda jireen 40 sano ee tiiha ayaa ay dhinteen Nabi Muuse iyo Nabi Haaruun waxaana 2 sano geeri horeeyay Haaruun alayhi salaam. geeridii Nabi Muuse kadibna waxa reer banu Israa'iil hogaamiyay Yuusha bin Nun oo ahaa yaraantiisii wiil uu soo koriyay cibaadadana uu ku soo barbaariyay Nabi Muuse waxaana uu ahaa wiilkii la socday Muuse kolkii uu Khadar la kulmayay weynaantiisina waxa uu ahaa nin caalim ah oo kamid ah culimadii reer banu Israa'iil. sidoo kalena markii ay reer banu Israa'iil oo dhamiba ay diideen in ay jihaadka galaan waxa uu Yuusha bin Nun iyo Kaalib bin Yuufa ay ahaayeen labadii nin ee qura ee iyagu ogolaaday jihaadka tulkoodna ku booriyay. sida la sheegay waxa uu Kaalib ahaa Muuse sadigii oo waxa uu qabay inantii Muuse la dhalatay ee Maryam loo oran jiray ilaahayna uu quraankiisa inoogu sheegay. Yuusha bin Nun bin Efraim bin Yusuf bin Yaqub alayhi salaam iyo Kaalib waxa kale oo ay ahaayeen labada nin ee kaliya ee ka badbaaday dadkii noolaa waqtigii ay reer banu Israa'iil jihaadka Muuse ku diideen kuwaas oo gabi ahaantoodba dhintay xilligii lagu guda jiray 40 sano ee tiiha. ilaahayna waxa uu doortay Yuusha bin Nun inuu noqdo nabi ka tirsan anbiyadiisa kaas oo hogaamiyay Muuse dabadii reer banu Israa'iil. 40 sano ee tiihu markii ay dhamaadeenna Yuusha waxa uu isku dubariday reer banu Israa'iil waxana uu u diyaariyay jihaadka. xilligii la gaaray waqtigii jihaadka lana doonay in uu ciidanku u ruqaansado dhulka Falastiin ayaa uu Nabi Yuusha u qudbadeeyay qoomkiisii waxana uu ku yidhi hadal ay dulucdiisu ahayd ilama dagaal galayo nin ay gabadhi u doonan tahay oo raba in uu arooso imana raaci karo nin guri dhisanaya oo uu gurigu qabyo ka yahay welina saqafkii aan saarin sidoo kalena ima raacayo nin xoolo iibsaday kaas oo sugaya waqtiga ay xoolihiisu u dhali lahaayeen. waxana uu Yuusha bin Nun uga jeeday arrinta inuu helo ciidan aanay ku furnayn howl adduun oo ay ka fekeraan qalbigooduna aanu mashquul ku ahayn kuwaas oo diyaar u ah jihaadka. haddaba daawadayaal inta aynan u guda galin furashadii dhulka Falastiin balse koobnaan badan aynu u guud marro taariikhda Falastiin iyo cidda tagi jirtay waxna ay soo qaadan doonaa qormo aynu ka soo xiganay Dr. Taariikh Suweydaan. 8,000 oo sano miilaadiga hortii waxa dhulka Falastiin laga buddigay magaalada Ariixa oo ah tan ugu qadiimsan uguna taariikhda weyn ee adduunka waxaana jira dhismooyin kale oo aan la garanayn cid lahayd ama samaysay. sidoo kale 14 qarni miilaadiga hortii ayaa markii ugu horeysay cid la garanaya ay deegaan dhulka Falastiin waxaana ay ahaayeen qolo aan duufiyiin la yiraahdo kuwaas oo kaga tagay asaar iyo raad dhulka Falastiin lama soo oga cid ay ahaayeen iyo halka ay asal ahaanba ka soo jeedeen. intaas kadibna waxa soo degay qabiilooyinka Kancaaniyiin iyo Aamuriyiin oo ka soo jeeda Carab kana soo hijrooday jasiiradda Carabta kuwaas oo degay kuna nagaaday dhulka Falastiin. waxaana ay u qaybsameen Kancaaniyiin oo iyagu degay banaankii iyo ogadii Yaabuusiyiin oo iyaguna degay dhulka Qudus uu ku yaalo iyo Fiqiyiinta iyo Aamuriyiinta oo iyaguna degay buuraha. waxaana dhulkaas oo dhan loo yaqaan dhulka Kancaaniyiinta taas oo lagu sheegay kitaabadii samaawiga ahaa ee hore sida Injiil iyo Towraad. waxaana masaaridii u suurto gashay in ay qabsadaan dhulka Falastiin xilli ku qiyaasan waqtigii uu noolaa Nabi Yaqub alayhi salaam. sanadkii 1300 miilaadiga hortii qabaa'il ayaa ka soo hijrooday jasiiradaha ku yaala Baxrul Mutawassit gaar ahaan jasiiradda Kareed waxaana ay yimaadeen xeebaha Masar. kadibna waxa uu dagaal ba'an oo loo bixiyay Falastiin uu dhexmaray qabaa'ilkii iyo Ramsiiskii saddexaad ee ka talinayay Masar kaas oo u diidanaa in ay soo degaan dhulka Masaarida. kadibna waan iyo heshiis dhexmaray waxa ay isla afkarteen Ramsiiskii saddexaad iyo qabaa'ilkii muhaajiriinta ahaayay in ay dhaafaan Masar oo ay degaan dhulka Falastiin gaar ahaan dhulka loo yaqaan Balasti. qabaa'ilkii cusbaa ee degay dhulka Balasti waxa ay caan ku noqdeen Falastiiniyiin dhulkoodina waxa uu ku shacbaxay Balastiin muddo kadibna waxa uu magaciisa ku bedelay Falastiin waana halka uu asal ahaan ka soo jeedo magaca Falastiin. qabaa'ilkii Falastiiniyiintu waxay ku noolaan kari waayeen koonfurta Falastiin oo ahaa dhul saxara ah kadibna waa ay ka soo guureen oo waxay dhex yimaadeen Kancaaniyiintii iyo Yaabuusiyiintii wayna kala guursadeen afkoodina inta ay barteen ayaa ay la caabudeen diintoodii. taariikh ahaanna halkaas ayaa ay ku baaba'een qabaa'ilkii Falastiiniyiintu raadkoodina uu ku lumay waxaana ay ku milmeen Kancaaniyiintii iyo Yaabuusiyiintii. Yaabuusiyiinta iyo Kancaaniyiintii waxa ay isku fidiyeen dhulka Falastiin waxaana ay aasaaseen magaalooyinka Qasa, Casqalaan iyo kuwa kale waxaana ay dhiseen maamulo iyo boqortooyooyin. haddaba aynu dib ugu soo noqono taxanaheennii xalqadaheennii hore waxaynu ku soo aragnay laba arrin oo muhiim u ah in aynu fahamno qadiyadda Falastiin
ugu horreyn waxaynu soo aragnay in ay dhulka falastiin ku horreeyeen oo ay degi jireen qabaa'il carab ah. marlabaadkana waxaynu aragnay nebi ibraahim qudhiisu in uu yimi dhulka falastiin isaga oo ah muhaajir kana soo hijrooday qowmkiisii kolkii ay gubeen, iyo in 12 wiil ee ay kasoo kala jeedaan reer banu israa'iil, hal wiil mooye ee 12 kaleba aanay ku dhalan dhulka falastiin. yacquubna uu u hijrooday dhulka masar 400 oo sano kadibna ubadkiisii ay dib uga soo hijroodeen masar iyaga oo uu muuse hogaaminayo. waxaana halkaas inooga cad in aanay reer banu israa'iil dhulka falastiin ku hantiyin dhalasho ay u dhasheen darteed ee ay jirto arrin kale oo aynu qeexi doono. arrintani waxa ay salka ku haysaa sababta uu ilaahay u faray in ay degaan dhulkaas oo ay furtaan, taas oo ah dhulkaasi inuu yahay mid barakaysan oo fadli weyn ku leh diinta islaamka. sidaa awgeedna ay xaq u leeyihiin muslimiinta eeba rumaysay in ay gacanta ku hayaan dhulkaa barakaysan, gaar ahaanna masjidu qudus oo uu dhisay nebi yacquub kadibna markii uu kharaabay dib u dhis uu ku sameeyey nebi sulaymaan calayhi salaam. sidaa awgeed reer banu israa'iil markii ay ahaayeen muslimiinta iyaga ayaa xaq u lahaa dhulkaas in ay degaan kana qaxiyaan mushrikiinta. markiise ay ilaahay ku dhaga adeegeen diideenna in ay rumeeyeen nebigii uu eebba u soo diray sidii uu dib ugu soo nolon lahaa diintii nebi ibraahim, waxaa ka wareegtay mas-uuliyaddii iyo xaqii ay dhulka ku lahaayeen. dhulkaas oo markasta ay xaqiisa leeyihiin kuwa caabuday eebbe keligii, rumeeyeyna kutubtiisa iyo rusushiisaba. haddaba yuushac bin nuun markii uu ciidankiisii diyaariyey ayaa ay usoo dhaqaaqeen dhulka falastiin, waxaana ay ahlu kitaabku sheegaan in ay ahayd magaaladii ugu horreysay ee ay reer banu israa'iil furtaan, ariixa, oo ay muddo 6 bilood ah xisaar iyo go'doomin ku hayeen. kadibna waxa ay ku xojiyeen magaalada alcayn, boqorkoodiina inta ay dileen ayay meydkiisii ku xidheen albaabka magaalada. ugu dambayntiina waxa ay dul yimaadeen magaalada qudus, waxaana ay yimaadeen galabnimo jimcaha. maalinimada jimcaha ah marka ay cadceedu dhacdo ee uu habeenka sabtigu soo galo ilaa maalinimada sabtidaba waxaa reer banu israa'iil xaaraam ka ahaa dagaalka iyo shaqada. sidaa awgeedna nebi yuushac ayaa cadceedii la hadlay oo ku yidhi, waxa aad tahay mid amran, anna sida oo kale waxaan ahay mid amran. waxaana uu eebba weydiistay inuu cadceedda u joojiyo saacad. ilaahayna waa uu ka aqbalay oo qorraxdii ayaa uu u istaajiyey. waxaana u suurto gashay in intaanay soo gelin sabtidu uu jebiyey ciidankii kancaaniyiinta. nebi yuushacna waxa uu noqday qofkii ugu horreeyey uguna dambeeyey ee loo joojiyey cadceedda iyo wakhtiga. reer banu israa'iilna waxa ay noqdeen qowmkii indhahooda ku arkay mucjisadaas kadibna inkiray. ilaahay waxa uu ku guuleeyey reer banu israa'iil in ay furtaan magaalada qudus, kadibna waxaa lagu amray in ay magaalada galaan iyaga oo sujuudsan oo leh xidda, micnaheeduna uu yahay eebbow noo dambi dhaaf. in yar mooyaane intoodii badnaydna waxaa galay qab iyo kibir, waxaana ay ilaaween mucjisadii cadceedda oo in ay awooddooda ku guulaysteen ayaa ay moodeen. durtaba waxa ay khilaafeen amarkii ilaahay oo sujuuddii lagu amray in ay magaalada ku galaan inta ay diideen ayaa ay jeediyeen dabada oo galeen magaalada iyaga oo dib u soconaya. waxaana ay bedeleen kelmadii lagu yidhi ee ahayd xidda oo u dooriyeen kuna qaydiyeen xinda oo ah xabad qamandi ah, iyagoo ku qosqoslaya kuna dhaleelaya nebi yuushac calayhi salaam. aabbayaashood markii uu muuse ku amray in ay furtaan qudus waxaa galay baqdin iyo fulaynimo, waana kii eebba ku ciqaabay tiiha iyo jahwareerka. ubadkoodiina markii uu eebba ku gooleeyey in ay furtaan magaaladii waxaa galay qab iyo kibir, waxaana uu eebba ku ciqaabay daacuun, kaas oo dilay 9,000 oo qof. intaas kadibna nebi yuushac waxa uu reer banu israa'iil u qaybiyey dhulkii 12 jilib ee reer banu israa'iil, mid kastana waxa uu siiyey dhul iyo deegaan u gaar ah. mid kastana waxa uu u sameeyey hogaamiye iyo qaadi xukuma, si guudna waxa uu ugu sameeyey qaadi u wada taliya oo ay hoos yimaadaan dhammaantood. muddo kadibna waa uu geeriyooday nebi yuushac isagoo u talinayay muddo 27 sano ah.